ehelada afar wiil oo walaalo ah oo ku dhintay qaraxii dhawaan ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxay codsadeen in la caawiyo. wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud ayaa la kulmay warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho. Abdirashiid Maluda Aba Muciis Aba ala Awees Maluda Aba aw hadda Aba Satali shaqada muu joogaa waa wiil yar uu dhalay Awees Cali Maxamed oo ifka kaga tagay 3 caruur ah iyo hooyadood oo xaamilo ah waxa uu kamid ahaa Awees 4 walaalo ah oo ku geeriyootay qarax iyo 14 bishan ka dhacay Soobe xilli ay ku sugnaayeen carwada ra'iis oo ay ku lahaayeen isgoyska Awees waxa la geeriyooday walaalihii kala ah Maxamed Amiin oo loo yaqaan Maxamed Dheere Salaad Cali Maxamed Deeq iyo gabar uu qabay walaalkood oo dhaawac ahaan dalka Turkiga loo qaaday Salaad Maxamed Awees Maxamed Deeq Nabco Allahu rahmado Xawa Tahliil Guuleed waa hooyada dhashay 4 wiil iyo gabadha ay ku dhintay isgoyska Soobe xilliga qaraxa uu dhacayay waxa lagu wargeliyay geerida caruurteeda maadaama ay ka maqnayd magaalada Muqdisho waxa ay timid iyadoo caruurteeda aas loo sameeyay wallahi anigu waxba yima kala ahayn waalid ma aragtay ilmihiisu waxba ma kala aha inkastoo ay u kala roon yihiin oo gacantoodu kala laalaaba ogtahay wax ma kala aha isku meel baa boogtooda ku taala kulligood midba mid waxaan siisanahay ayagoo ila ag fadhiya in leeyahay hooyo adigu maada kaliga ay hooyo ku dhashay iyo maaday ku dhashay maanta isku ay ku dirireen waana ba idin wada qaadini marka hore waa idin wada qaadi karay laakiin hadda siba u cuslaateen maanta isku meelahan ku cayaara sidaasan ka xusiisanaya ayagoo qojolofyaha gabadh madaxu maqan yahay wiil fargo'need awal baa lagu xusiistay lagu gartay wiil kursi oo ku fadhiya lagu gartay oo ku fariisay jiray markuu shaqay jiray waxyaalaha noocaas ayaa lagu xusiistay kursigii gubtay hilbi laga fufujiyay baa lagu xusiistay waxa waa la soo bixiyay oo biraa feerihii oo ishaysta birihii oo carwadu ka shaqeynaya alaabtii saarneed birihii dhalada saarnay waa laga soo dhaxbaxbax ayaa feerihiisa laga soo baxay mar aan booqanay qoyskan guri ay ku leeyihiin xaafadda Zone K ee magaalada Muqdisho waxa noo muuqanaya inay socoto qabanqaabada tacsi wadareed la doonayo in loo sameeyo wiilasha iyo gabadha halka ku dhintay Maxamed Xasan Maalin oo ilma adeer ay yihiin wiilasha dhintay ayaa xog dheeri ah nala wadaagaya qofkooda leela Awees baa ugu dambeeyay oo aan lacag isoo tur mobilka ana ku jira hotelka dhabarkiisa gaar ku jira ayaa u baahday lacag u baahday ninkaas ay ugu dambeeyay isoo tuuray lacagtii aan u baahnaa imsa ku soo tuuray lacag $20 isoo tuur markaa u baahnaa isoo tuur ayuu isoo tuur hadda away Awees akhir u jira dawladda Awees uu tagay dadka dhinto meesha ku dhintay ayuu ka mid ahaa marka waxa ilaahay xaqiis ka qoran bay ahaayeen sababta waxa hoos boqolka ugu xirnaa xisaabaad ay ku jireen alaabta meesha ku taal tirinayeen shaqo maantaas birabaati dad inay u shaqeeyaan kuma talagelin inay waxaas carwada la xisaabiyaan oo ogaadaan ayay ku talagaleen hoos inay ka xirteen marka waxa ilaahay xaqiis ka yimid ahaa marka ilaahay xaqiis ilaahay baa keenay haddana ilaahay baa maartay ku noqotay awoodiisa in nimankaas dhintaan sanadkii waqti xoolaha lagu ganacsado waxa laga baxshaa saka laga baxshaa marka nimankan waxay ku talagaleen inay xisaabaan xoolaha sakadii lagu lahaa oo ay kulay ku waajibiyaan inay baxshaan xasaska Salaad Cali iyo Awees Cali ayaa iyaguna aan kula sheekaystay xaafadda Zone K oo gurigooda oo xilligaas ay ka muuqatay buuxdhaafka dadka u tacsi imaanaya halkan Salaad Bashir wiilka kursiga أنا اللي ده يا علمها يعني صلاة محق حسوس يا مركي يوردن بيسي معناها قواد إسبتال إنا جي معناها نبراك صوب حي إسبتال جي ناكو صوب عايا عمل بريا جينا ما أنت شقاها رقيا أنسة عبد الله جمعالة علي ده أنسة أفرت جيريوتي لهم حرستو متكيبا سيجا أويس عليها عائقة ها أويس كورن محل نوشي كتاب صور عام
وسنين اسكت دقنا ما شاء الله اسكف يعني لبسكو مقل الحمد لله ninkaygu ahay saddexdan carruur oo dhalay haddana uura u leeyahay hooy xaawo guuleed ayaa carruurtan waxay ku soo korisay agoonnimo maadaama aabahood mar sii horreysay uu geeriyooday waxa ay dalbatay in qofkii taageeri karata carruurta agoonta ah uu soo caawiyo qoysaskan maxamed ciise maxamuud Somali Cable TV Muqdisho